الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، khudbadeena maanta waxay ku tacalluqdaa ama ay ku saabsan tahay khushuuca salaada lagu khushuuco. salaada sidaan wada ognahay waa ruknun min arkaani alislaam. arkaanta islaamka kuwooda ugu muhiimsan ayay salaadu ka mid tahay, bal waa rukniga labaad oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay cimaadu ddiin, tiir inay u tahay diinta islaamka. salaada oo nebigu sala allahu calayhi wasalama uu sheegay qofkii ka taga inuu noqonayo qof gaaloobay. alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar. ballanka noo dhaxeeya waa salaada, qofkii ka tagana waa gaaloobay buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. salaadu marka aad iyo aad bay muhiim ugu tahay qofka muslimka ah. 5 salaadood fii kulli yowmin wa layla inuu tukado waana rukniga labaad bacda kalimati tawxiid. waxyaabaha marka qofka muslimka ahee tukanaya laga doonayo waxaa ka mid ah salaada inuu ku khushuuco. khushuuca waxay culammadu ku fasireen waa istaagidda qalbiga ou istaagayo ilaahay hortiisa subxaanahu wa tacaala. qofka qalbigiisa wuxuu istaagayaa allah hortii, wuxuuna la istaagayaa isku dullayn iyo khushuuc alla uu isku dullaynayo subxaanahu wa tacaala. kaabaa waxaa la yidhahdaa khushuuca. khushuucu fadaa'il fara badan buu leeyahay. fadaa'isha khushuuca waxaa ka mid ah qofka salaada ku khushuuca salaadiisa markuu ka baxayo wuxuu ka baxaa asagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtiisa u dhaafay. dunuubtaa laga tirtirayaa, sayi'aadkiisa loo dhaafayaa. waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ka soo arooray sida saxiix muslimka ku sugan min xadiidi camr bni cabasa. waa xadiid dheer, laakiin waxaa ku jira xadiidkaasi inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofku hadduu istaago ee uu salaada galo ama salaada uu tukado, xilliga uu salaada tukanayana qalbigiisa ilaahay u faaruqiya oo waxyaabo kale aan ku mashquulsanayn, qofkaasi salaadiisa wuxuu ka baxayaa asigoo wax dembiya lahayn. wuxuu salaada ka baxayaa ka yowmi waladatu ummu, asigoo la mida maalinkii hooyadii ay dhashay asigoo la mida. qofka markay hooyadii dhalaysa wax dembiya ma laha, sidaasoo kale asigoo ah ayuu salaada ka baxayaa buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam. xadiid kaloo bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi cuhmaan bni cafaan. cuhmaan radia allahu canhu waa weyse qaatay. markuu weyse qaatana 2 ragca ayuu tukaday. markaasuu wuxuu yidhi, waxaan arkay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo weyse qaatay sidaan u weyse qaatay oo kale, kadibna 2 ragca tukaday. markuu 2 ragca tukaday wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam, qofkii weyse qaata weyse qaadkaygoo kale 2 ragcana tukada, 2daa ragco markuu ku guda jirana aan naftiisa u sheekayn, waa inuu ku khushuucsan yaha waay. qofkaasi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, gafara allahu lahu maa taqadama min denbih. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u dhaafaa wixii tegay ee dunuubtiisa ilaahay waa u dhaafaya subxaanahu wa tacaala. waa fadli weyn, laakiin fadligaa wuxuu u sugnaaday waa qofka salaada ku khushuuca wey. waxaa kaloo nebiga sala allahu calayh wasalam ka soo arooray oo fii saxiixi muslim ku sugan min xadiidi cuhmaan radia allahu canhu inuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam, ma jiro qof muslima oo weyse qaata, weyse qaadkiisana wanaajiya, rukuucda wanaajiya, khushuucda wanaajiya, ilaa alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u dhaafaa wixii hore uga dhacay. hadduusan la imaan kabaa'ir iyo dunuub waaweyn, hadduusan la imaan dunuubtiisa yaryaroo dhan waa loogu dhaafayaa. xadiidka marka waxaa ku jirta inuu khushuuca wanaajiyo, fa yuxsinu khushuucaha, khushuuca salaada inuu wanaajiyo. salaadoo lagu khushuuco walaalayaal waxay sabab u noqonaysaa inuu qofka jannada ilaahay ku muto subxaanahu wa tacaala. qofka mu'minkaana gaayada iyo yoolka u jeedo ama danta ugu weyn uu leeyahay waxa weeye maalinta aakhir in ilaahay cadaab ka badbaadiyo
jannana uu galo jannada waxaad ku heli kartaa ama asbaabaha lagu galo ka mid ah salaada oo lagu khushuuco nabigu sallallahu alayhi wasallam fi xadiith Uqba ibn Aamir rasuulka alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri ma jiro qof muslima oo waysaaqaadka wanaajiya kadibna salaada u istaaga oo tukada laba ragco labada ragco oo wajigiisa uu ku qaabilayo ama markuu labada ragca ku jiro oo wajigiisa iyo qalbigiisa ilaahay uu ku qaabilayo qalbigiisu soo xaadirinaya markuu labada ragca tukanayo qof sidaa yeelaahi ma jiro illa wajabat lahu aljanna illa janna waajibaysa nabi sallallahu alayhi wasallam qofkaasi janna waajibaysa laakiin mar walba waa inaan ku baraarugno xadiidka waxa ku jira in qalbigiisa uu soo qaabilo qalbiga soo qaabila macnaheedu waxa way salaada inuu ku khushuuco waa in wuxuu tukanayo uu garanaayo waa inuu salaadi la socdo waa inuu dareensan yahay inuu ilaahay hortaagan yahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaafka sidaas oo qofku ku helaya fadaa'isha khushuuca walaalayaal waxa kamid ah dadka khaashiciinta ah ee salaada markay tukanayaan ku khushuuca ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegay inay yihiin kuwa liibaanay qad aflaha almu'minuun alladheena hum fi salatihim khashi'un waxa liibaanay buu yiri Allah subhanahu wa ta'ala dadka mu'miniinta ah yaa waaya mu'miniinta ilaahay subhanahu wa ta'ala sifaat kala duwan ayuu mu'miniinta ku sifeeyay laakiin sifada ugu horeeya ee dadka mu'miniinta ay liibaanay ay leeyihiin waxa way waa kuwa salaadooda ku khushuuca way alladheena hum fi salatihim khashi'un waa kuwa salaadooda dhexdeeda ku khushuuca tilmaamtaas ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala aayada Allah muusan dhihin waxa liibaanay kuwa tukada dad badan waxa jira tukada laakiin haddana laga yaabo salaadii ay tukadeen inaysan ogeyn oo aysan ka warhaynin qalbigoodu maqan yahay Allah subhanahu wa ta'ala ma dhihin kuwa tukada liibaanay laakiin wuxuu yiri waxa liibaanay mu'miniinta salaada markay tukanayaan ku khushuuca taasina waxayna tusinaysaa ahmiyada uu leeyahay khushuuca salaada dhexdeeda lagu khushuuco